وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرسادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نار أمن أسس بنيانه على شفا جرف نار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم درسيان وحاو كبلا آية بقول الضباد كنمد سورة التوبة waxaan ku soo guda jirnay qaswadii Tabuuk suuraddii ka warramaysay Tawba waxaan ku soo guda jirnay cadayntii laynoo cadaynayay midabada iyo noocyada ay leeyihiin munaafiqiinta iyo urka gaalooyadu gaar ahaan kuwii la noolaa nebiga calayhi afdalu salaati wa atamu tasliim axad kasta oo jidkoodii qaadaanay inuu iyaga oo kale yahay ayuu rabbi noo cadaynaya waxaan soo aragnay nimankii nebiga ka hadhay dagaalkii Tabuuk waxa waa dagaal mashaqo iyo dhib badan buu ahaa gaaladu aad bay u fara badnaayeen waa ruumaankii amba reer galbeedkii adkaa weyn waa ruumankii faraha badnaa mu'miniintuna maalintaa way badnaayeen 30,000 oo nin bay ahaayeen 10,000 oo ka midii farday fuushanaayeen waxay ku dagaalgelayeen oo dirirtiiyo jihaadka ay kaga qaybgelayeen fardo waa dagaalkii u dambeeyey dagaaluu galay nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayh saynu soo aragnay wuxuu dhacay goor dhulku aad u kulul yahay meel aad u dheerna uu ka dhacayay duulimaadkii oo lagu duulayey munaafiqiintii waxay isku dayeen nebiga inay hoojiyaan waxaynu soo aragnay noocyo fara badan ay sameeyeen xataa waxay isku dayeen inay dilaan waynagii soo aragnay oy nebiga ka tuuraan gebi amba jar ay ka tuuraan waxaa ka mid ah haddaba munaafiqiintu hababkii ay adeegsadeen ilaan kolba habbay isku dayeen hadduu kale u socon waayo ku kale u wareegayeen amba iyagii baa noocyo badan oo midabo badana qolaba dhinac bay ka dagaalgelaysay waa munaafiqiintii caawa aayaadkani waxay tilmaamayaan waxyaalihii ugu dhibta badnaa ay munaafiqiintu ku kaceen maalintii Tabuuk markii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu anbabaxayey ee uu Tabuuk ku sii socday colka hogaaminayey halkii ay ka raaci lahaayeen markuu mid walba cudur daaranayay qolaa nebiga u timid waxay yidhahdeen nebi allow waxaanu u soconaayoonu rabnaa masaajid aan dhisannay inaad noogu tukatid markaasaa rasuulku salawaatullaahi wasalaamu caleyh wuxuu leeyahay muxuu masaajidku yahay
masaajidkii Quba agtiisa ayaan ka dhisaynaa masaajidka Qubana waa masaajidkii ugu horeeyay ee masaajid dhulka laga dul dhisay nabigu dhis Quba agtiisaan ka dhisaynaa markaas waxa uu nabigu salawaatu Ilaahi wa salaamu alayhi su'aashii la weydiiyay maxaa keenay waxa nabi Allah masaajidkan wax kale uma dhisayno waxaan u dhisaynaa danta muslimiinta kay dhibaataysan iyo kay taal gabay kaan socon karayn iyo habeenka roob mahiigaan uu nahelo on kala qaad lahayn iyo ee jir weyn uu daayo xilliyada aan la socon karayn masaajidkan ku yara tukanaa doonina mawlac baan rabnaa way masaajidkan ku tukanaa oo Quba uu idin dhawiyay waa laylatul matira habeenka roob aan daayo iyo kii baahile iyo kii naafada ay gaadhayn ayaan leeyahay ku tukado nabigu wax kale kuma oran wuxuu yiri imaka socod baan ku jiray jihaad markan ka sukaale noogu tukabeelay noofur soo kale masaajid hebel baa la furaya kaale noofur noo barakayo noogu tukabeelay nabigu wuxuu boortay imaka waan sii socdaay markan soo laamahayno aad u ka socdo nabigu masaajidkan maxaa asal u ahaa nabigu ka socday masaajidun baa la mooday in la dhisay waxa khatar ah hadduu qofku isagiyo xumaan raba uu diin ku dhuunto أو نفيس ديمات سمايستو وادب وحباد خريبيسا وحباد قصيسا دين بهدنا كله بطول شعر كذي حيلته وادب هذه قبل أنت مركي شاد يبسنا يساي صوحرة النقاب يجلابيب يوحي صوحرة الشيخ الموضوع شاد نكون قاضيسا وادب سوما وعيب دينتي ولا عيبين يقول دم بكره هذا أنت القميص كي حيلتي الشيخ اسكندك تدو أتلاقي ده كان مركز يعني قرآن بان قرآن صار يا وحكلا عن ناف كلي وحكلا تبيزي سوي ما هذا القميص كي أنت حيلتي أذكر في القدوة تام مساجد بان لسه أنا كورن بلاها كوروستي والله عايز كده وروستي واحد نبقى قفك إنه الدين كوهاس نمت يا أمين الدوار مركز نكي أضيقي صوماليا ده أنتو دارتي مساركي هبين كيلي يدي حرق قلبه وكبودي حرق اسم اسمودي هدون المال دين تكون عمل عيدة بريد دين تبغى حراق صوما اكذب بيلاده دب إسلام كوا حويين قفك الله مرة إن الشعر دينات حلتون يقول كستي حلتون يعني وحبا وأنا هداد حلتين الدين توصافي النقطة تدوي وحقت شيء يستند كرم شيء تدوي إن هذا أقول ميدا بيسيد معها أو كلبا نوع هذا كلبا آيات داني قولنا الدليل شذا بكي آيات الدليل بيشرتو مرة كنا نسكت تكورن هدان دين تمر كان دان ولا يوم كود دان يستكورن نلاش يقولن هدانو ديدون مالين تردمان أيهون الله على القرآن الله آخرية تنبوه الله حرية قبرك الله يقدر دعيه هدو وركيه نقول نلاش يقولن بالدين تكير علينا كورن أقوى وأنا تقرأتي الدين توحويه إلهي وأقوال إيا أفعال إيا أوامر إيا وحوي نفريو لما كان يجب مساجد بي كله من مساجد مصر عظام إياك واحد دوني المسلمين تقون تكتران أو نباتيان ونفيس بك نفيس إلهي وحكومة عابي مساجد كي مساجد والود ديدو مسجد الضرار بالود بحي مساجد كي نبت الله صمست marka adiga ku dhadayta masaajid kale ka garab dhisid oo inaad muslimiinta ku kala geysay doonaysan la midun baa noqonday wax kasta ummadda oo isku duuban oo isku xiran islaamka aad ku kala dilaysaba waa dhibteedu yeeran marka hadaba bal qisada ay nusaan isku yeerdun taagna aayadku markaas ay noo fasirmi hal darsigeenuba waa qisada uun iyo aayad isla wada socdo waxa masaajidka yaa ka dambeeyay in مساجد شهر مساجد لصوحنا أو للصو أو مسلمين تلاقوا قاضوا يا كدم بي واحد كدم بيني لرا أبو عامر الراهب أبا عامر الراهب نلا لرا كدم بي وحلت الماما أبا عامر الراهب قلت أني كان نكون دلنا نتقرن سدبا دبس دلنا سبب بقرتي واحد نكون صار أرجني
markaynu tafsiirka soo wadnay nin saxaabiya oo qasiilul malaa'ika la yidhi ninkii malaa'igtu maydhay waa aabbiyo munaafiqa haddaba inaan la isku dhalinna ogo baash la iskuma dhalo nin walba waa camalkiisa nebi ibraahim iyo aabbii baa kala dhaqaaqay nuux iyo inankiisi iyo islaantiisii baa kala dhaqaaqay eg diintu waxa weeye qofkii xaqa qabsadiyo kii kale saan baa la noqonaya ninkii xandaleed ogey ee qasiilul malaa'ika ee dagaalkii uxud malaa'igtu maydhay waa aabbii kanan ka warramayna caaw abaa caamir wuxuu ahaa oday weyn oo reer khasraja odayadii khasraj buu ahaa khasraj waa ayo waa labadii qabiilee madiine deganaa mid ka mid a kuwii cabdillaahi ibnu ubayina uu ka tirsanaa munaafiqii weyne reer khasraj buu ahaa ninkani intaan nebiguba soo bixin salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ayuu nasraanoobay nin kiristaana buu noqday oo diinta nasraanada haysta ayuu noqday ninkii oo nasraaniya ayaa nebigu markii uu soo baxay ee dacwaddii nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh madiine ay timid ayuu ninkii intuu cadhooday ayaa wuxuu idhi laa ajidu qowman yuqaatiluunak ilaa qataltu buuli qolo nebi maxamedow dirir iyo dagaal kugu qaadaa jiri mayso ilaa haddii kale kuwaa unbaan ka soo barbar dagaalama cid kastoo adiga ku neceb oo waxa weeye kula dagaalamaysa unbaan feedha soo raacin buuli markii haddaba nebigu uu maka furtay ee dagaalkii xunayn reer hawaasin la jebiyey horteed horta markii ay dhibtu adkaatay horta maalintii beder markii nebigu uu guulaystay horta cadownimo sii qaadayba beder nebigu markuu guulaystay ayuu magaaladii madiine fadhihi kari waayey wuu cararay makuu tegi ciidankii maka laga soo abaabulayey uxud soo qaaday buu soo horgalay markaasaa beertiisii oo dhulka ahayd ayuu booraamo waaweyn ka qoday halkii labada col ay isku qabsadeen gaaladii iyo muslimiinta iyo uxud agteeda ayuu ka qoday godod markaasuu daboolay waxaana la tilmaamaa godadkii nebigu uu ku dhacay mid ka mida buu ahaye deeta nebigu uu jilibka ka cawarmay ee uu dakhramay ee dhooshu ay ka jabtay gaaladu godkii ay ku rideen godad ka miduu kuwa qoday buu ahaa ninkan maalintaa intuu qayliyey buu tolkii u yeedhay isagoo qurayshta socda wuxuu reer khasrajow nebi maxamed wuu idinlu goynayaaye iska ilaaliya ha raacina dacwad buu ku qaaday markay gartay ba warna dhaafoo naga tag bay dhahdeen nebigaan la soconnaa salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh wuu guuldaraystay maalintaa markii maka la furtay ee xunaynna la furtay ee dagaalkii xunayn u dhexee daa'ifna la furtay baan u jeedaa ee dhulkii oo dhani ay nabad noqotay ayuu ninkii dhulka hayn waayey oo u cararay wuxuu u baxsaday xaggaa iyo shaam buu tegey boqorkii ruumaanka ayuu xaggiisa tegey ilaa nin nasraani u ahaaye xaggaa markuu tegey ayuu nimankii munaafiqiintu la soo xidhiidhay warqad u soo qoro wuxuu yidhi war waxaan ku muuqanay boqorkii ruumaanka col baan soo wadaa col ciidan ruumaan soo wadaa oo nebi maxamed anaa ka saari doono madiine idinku waxaad samaysaan inoo dhisa qalcad meel inoo dhisa aynu ku kulanno warka idinku keeno ninkan idiin soo diraayo iyo ka idiin imanaayo iyo warqaddaan soo dhiibo meel lagu soo hagaajiyey adrees inoo sameeyo cinwaan meel waa inaad samaysaan maxaa laga dhigi dee meel kaloo la iskugu imanaya munaafiqiin ku uraraysaa ma jirte masaajid aan gaar u leenahay nebi maxamed waa udun bay soo dhaha sooma marka hore waa dheg wax walba uu maqlayaa un marka aynu dhahna masaajid baan dhisaynaa masaajidkaana aan ka dhigno meel aan muslimiinta ku shirqoolno oynu ku shirno oynu hoy ka dhigano abu caamir baa ku soo taliyey masaajidkii baa la dhisay nebigaa la leeyahay noo fur masaajidka waxaa la doonayaa ciidanku soo wado meel lagu soo hagaago oo raggii halkan jooga ay u fadhiyaan nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh wuu iska socday dagaalkii markuu soo dhameeyuu in yar u soo jiray magaaladii madiine ee masaajidkiina uu sugayay inuu ku tukadade oo uu dadka u furo jibriil baaba u yimid
وهني محمد مساجد رجع سنستين ومساجد دن كلا لجلي ومساجد للدوني المسلمين تلقوه لقويو ما مساجد كحنوصنا هي كباهن هي هبين كالروب كي وحلو تلقى معها مساجد كجبر النبي محمد نبي يقول دري مالك بن دخشم أو بني سالم هيركو دي هالك المساجد كلا قد الصيا أيور مالك ودقاق مع نقاض لبنين لما دي سيدا يوحوي جوب مساجد مالك وحكوري معنا ويرسلوه انتوا أقلدوا دي ميت كم ذا قليل أو سوقاتي ولهن دايره maxaan ku raday geeti mareedka aw dabgaliyay ayuu iyadii ololeysa u deetana masaajidkii suray bul markaas uu ololiyay iyagii dhinac kale uga yaacay bay noqotay looma sheegin la iyagu waa ka yaacay kuwii ku dhuumanayay ee waanu tukanaynaa aasama waa lagu dulgulay markaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay war haday salaad idinka tahay oo cibaado idinka tahay masaajidkii awwal yawm la dhisay أيام أكتيني ما تكتان وما مسجد القبة ومساجد كي كواذا لبس وحبيسكم اتنا واتشار وديار بني سالم بني عوف واسلاق الذي حبيسكم اتنا مركز سالي واخر مساجد كي كنت كذا مركز مساجد كي لو حبيت رجل انت ايمان هي تقوى قنشها انت وجوه ولبا نظافه هي الظهيرات هي قروح ذا اديابتا كنت كذا بقول رب سبحانه وتعالى لمن إلهي ونظيف كنت المامي أي كنت كذب لي رب سبحانه وتعالى مسجد القبى ومساجد كي نبي يقول الصلاة اللي قلت كذا وحي لمتاي عمرين عمر يستوى كلا لمت مركب مدينة لا تجوا لك وقوم مذن إلا السيارتين لا تجوي يعني وحويه نك كنت كذا صلاة اللي قلت كذا هو حديث كي ساعة وحاول لك ما كعمرة عمره كانوا لم يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه ومسجد القبى مسجد القبى النبي ومساجد كوادو لس النبي ما أنت خميسين مركي لا تشري سد حبين بكلهم تقار ثور مركو كلهم تجدكي سنين بصباح النبي سنين تادي وحسوا جاري وما أنت سديدات هل كان بسوا جاري قبى الله قد يصير غير كان بسوا جاري أو مركا وحوجا أتشير مجالات المدينة إما كمجالات إسكوميت بين نقطتين وضد كم كوي يابو مجالهم بعد حصوتها لكن دائما كتشوفوا بالبلية محل أنت بقوا مجالهم صمة وإسكودكت مركا وحويه هل كابو كسوري ما الإسنينات بين إسنين ثلاثة دي إيه أربعة دي إيه خميس تبغى الكتشوف صدق لا مع الماضي النبي وكتو كذي وكأساسي وكبس مسجد القبى شمعين وحوسوا ورجعي مساجد كيس المدينة وكبسي هالشيء سعي فريستي هل كان مساجد كيس وكبس النبي صلوات الله والسلام عليه بركة كودي بركة كود محول سي مسجد القبى أيودس ما كان يحلينا مسجد القبى كتو كتان أيها وحربك قيمة بدن ومحا مساجد كلاد وضان قال تعالى رب سبحانه وتعالى وحليه والذين هم منافقين والذين كوي اتخذوا يا شيء مسجدا مساجد يا شيء قل إلهي لو عبادة يستيشن ضرارا لبيك يشن أي مؤمنين تكون لبان وكفرا قال لما أي كيشن إلهي أي كي قالوا بانوي قال لما كو قرصدان أم بعدي قال أي قرقاران وتفريقا كالجين بيكدكتين بين المؤمنين مؤمنين تايكو كلكحينيان وإرسادا جباد ينفيس يعمل قلب وقدجين لمن روح حارب الله إلهي لدقالمي إيه والرسول كيس من قبل هريبة وأبو عامر الفاسق وكراه أي جباد وقدجين مالو كسر لهم طول خبوا عليه ولا يحلفن وإذا كل أرتي ولا يحلفن وحي كل دارن إن أردنا ما أردنا ومتشيدنا إلا الحسنى ونقول بنشيدنا وحنقول يا نور سينا وداع إلهي ينا نكون عبادي سنة يا مساجد أهان والله اللهنا يشهدوا أغيو مركيي إنهم أيقول لكاذبون إني بين لياليين لا تقل هيستاجل أو هكتكن فيه إحليس أبدا ولي قبل رب سبحانه وتعالى
ومساجد يدستان كانوا نوفر لاين وكات جوابت فبوح لي والذين كو اتخذوا يش مسجد المساجد يش ما لقوا عباديس ضرارا نبكي يا شيء يعني منافقين تي ضرارا نبكي يا شيء يعني مسجد كي waxay ka dhigteen diraaran dib wa kufran gaalnimo yani gaalada loogu hiiliyo iyo waxay ka dhigeen wa tafriiqan kala geyn bayna almu'miniina mu'miniinta ay ku kala geeyeen oo jamci bay kala jabinayaan oo jamac kale halkan ka furayaan oo munaafiqiintu ay soo ugu tukadaan wa irsaadan bay ka dhigteen gabaad meel ay ku dhuuntaan emilgal ufays ayay ka dhigteen god bay uga dhigeen liman ahad xaaraba allah ilaahay la dagaalamay iyo wa rasuulahu rasuulkiisa min qabl horay rag ilaahay iyo rasuulkiisaba aan rabin ee gaala ah ee yidhiba wallaahi nabi maxamedow meel kastaba kugula dagaalami kuwii bay uga dhigeen gabaad buli rabbi subxaanahu wa tacaala irsaadan bay uga dhigeen gabaad dhufays bay uga dhigeen meel ku soo gabaad iyo ay ku dhuuntaan ولا يحلفون marka la warwaasidi soo masaajidka laba talaabo idin jira soo masaajid aanay baahiba idin hayna kii horeba uu haawanayo faaruqayay wala yahlifuna waxay ku dhaaran in aradna ma aradna ubaanaan jeedin illa alhusna wanaag mooyee wax kale uma aanaan jeedin wanaagun baan u jeednay khayr iyo samafal iyo miskiinkoon u dhibrinayna iyo yaani muslimiinta ama musalliinta dadka tukanayoon u ballaarinayna dhulka ku tukadaan iyo wanaagu baan u jeednaa waxaan leenahay masaajid waa bataan khayr iyo wanaag baan kaytaalka gabay in socon karin indha dareeyay in socon karin baan uga dhigaynaa masaajid rabbu xulay wallahu allahna yashhadu wuxuu marakeeyay oo qiri innahum ayagu lakaadibuun inay beenaalayaalihiin beenaalayaal inay yihiin أي إلهينا قرية أمركي ربي مركو أنت أتلمامين وحل النهي إلا قلت كذا لا تقم هتشوكسن وهكنت كان فيه مساجد كان حديثة أبدا ولقى نبي الله لمسجد مساجد أسس لغو أساسي لغو لغي على التقوى الله كعبس من أول يوم مالنتي كوات شكتي أي أحق مضن أو أقرله أن تقوم إنا استاكتدود كتكتد فيه الحديث مساجد كي قباء سيمفسرين تقول سلف قوي مساجد كي قباء إيه مساجد برنامج مساجد كالنبي قبوه ينبري صلوات الله والسلام عليه مساجد كي قباء إيه مساجد بكو كأها أي أحق نمبضا إنا كتكتد برب سبحانه وتعالى بحالك لك الدولي لمسجد المساجد أسس لغو آساسي لغو لغح لغي على التقوى الله كعبس إلهي درتي إيا إيمان من أول يوم مالنتي كواد أي أحق مضن أن تقوم إنا كنت كتيد فيه الحديث فيه وحا مساجد كاكسوغا رجال رقبا كسوغا رجال رقبا كسوغا رقاصوا يحبون جعل أن يتظهروا إن اسم ضيفيان قرنك يوسخضة ينجاسة إن اسم ضيفيان رقبي يكو استشاقاتا أو نجح باستعمال بيكو استشاقاتا كمدا حديثة واحد مفسرين طبعا كان تفسير كان هيابه وقرية أما مفسرين تعيد هذا لما كان بقى لو يدي واحد ورواة أنصاري اللي يدين أماني اللي يدين كو أماني إن كو اسم ذيفيتين حتكون نظافة قاضة واحد هذا واحد نكون نظافة قاضنا قلت لقى حبان اسمرنا أم بقوري ما كانوا حبنتي أنو إنجتشنو أيون هذا نبي راعنا الحديث كان المحدثين في السنة كيسوا مصر نبي هذا وأنا إسكيل على سنتانا ما كان واحد عليه وبيه اللي هو يستقل رجع هو يسكت داينك واحد بنان قف مركو الظهر قاعدنا
waxa kuu bannaan saddex xaalo way kuu bannaantay waxa kuu bannaan inaad samaysid istijmaar ood yacni waxa weeyaan kelnigis iyo qori iyo maxaan ku dhahdaayey dhagax iyo inaad ku istijooto way kuu bannaantay oo istijmaar baa dhaa diga iyo waxaan baad iska ilaalin waxaan kelnigis u leeyahay warqad u diidayaa warqadan haddaad tira waan ku istijo qaadan doo kugu sii bi'inuna tan waxba ma bi'inaysa waa inay noqoto wax dee kaadidii masaxaysa oo engejinaysa tan haddaad isberberisid dee waa gebigaaga way kugu baahin waad sii walaaqi nijaasin baad nijaas kusii dari laakiin marooyinkan warqad amba wax halkaa xubinta engejinaya waa inaad saddex aada isticmaashid xataa hadduu mid qura yahay saddex dhinac oonad mid walba isticmaalin marka hore inaad ka isticmaashid wey waa dhagaxii xaggan baad ka isticmaali haddana xaga kale aad u rogi hadduu suurageliyey hadduu yar rogiyey haddana xaga kale aad u sii rogi ilaa laakiin shardigu maa inaad saddex uun mariside waa inaad taati fiqkaadiya lagaa waayade waa inaad meesha engelisid haddii kale dawadwadi unoo tiro dhiman un baad ka dhigi ilaa intay xubintu engegayso taa way kuu bannaanto waad iska tukani waxaa kaloo bannaanta inaad biyihii ku istijootinte oo de biyi inaad waxoogaa isku yaro daadaadisidun maaha e biyaha naftoodii de waa inaad saani kaadidii dul eridide ood ka maydhid meesha saani u maydhid labadaba inaad isku dartid oo intaad kelnigiskii isticmaashid amba dhagixii aad haddana biyaha ku bartidna waa suuragal calaa ayati xaal nimankan waxa weeye waa niman isnadiifinaya wey nijaasta iska ilaalinaya ayay inagu adiga arkay inagu wax baynu kala garan lahnay maxaa nijaasa maxaa uskaga hadda uskaga iyo nijaasna way jirtaa uskagu waa yar doqoniimo nijaastu laakiin waa cibaado daro imanka hadda halkaa intaad soo martid aad boorkaa soo martid adigoo boorna aad masaajidka soo gashood wayse qabtood iska tukatid dee salaadaadi way ansixi maxaa boorkaaga aad wadatid kuulaadayda waad iska xambaalinayso dharfagaaga laga yaabaa adu waa yar doqoniimo dayna iska yar qurux badnaato way qurux badnayda ood ilaahay si qurux badan aad u qaabishid adigoo nadiif ahe laakiin salaadaadi way ansixi laakiin waxaa ayaan darro ah adigiioo labisan oo qurux badan oo haddana nijaas ba iska kaadidii oon dhammaanba yar xareeyey un baalkii balka waran dee quruxdaadi maxay tan iyo cadarkaad ku soo shubtay nijaas baa wata waxba laga aqbali maayo inagu labada madharkaan eegnaayo shamiiskeenna qurux badan iyo dharkeenna iyo dhaldhalaalka iyo waxan baan eegnaa laakiin nijaasta la yskama ego waa adiga arkay marka masaajidka markaad arteeg waxa soo baxay uskagii baan kusoo dhex joogsanaynaa qofkii iska eelaali iyo waxba mala iyo muulkii oo soo noqday ood arkaysa oo qurunkii oo soo noqday baad saan u soo tallaabsanaysaa waar masaajidka ka ilaali ma jirto laakiin nadaafaddu heerar bay kala leedahay markaa nimankan iyaga iska daa nijaasi yuxibuuna an yatadaharuu inay isnadiifiyaan bay jeceliin nadiif ay noqdaan daahiran wa baatinan kor iyo hoosba muuqaalkii waa rag sharaf badan oo udgoon oo dhalaalaya oo subkaday weeye gudihiina waa maxay waa rag daahira oo aan nijaas shaqo ku lahayn wey kor iyo hoosba waa ka sidaa wallaahu allahna yuxibu wuxuu jeceliyey almutahiriina kuwa isdaahiriya ee isnadiifiya ilaahay subxaanahu wa tacaala jeceliyey afaman axad ilaahay wuxuu ku soo noqday masaajidkii ilaahay dartii loo dhisayey iyo kii dan kale laga lahaa ilaahay wuxuu uhi ninka guri dhisa masjid buu dhis ilaahay meel lagu caabuduu dhis wuxuu ku dhisay alla ka cabsi iyo isagoo ilaahay raallaanshihiisa doonayo on wax kale ku rabin ninna masaajid buu dhis kaasi fa ahlan wa sahlan ilahay agtiisa wuxuu ka helay wuxuu u dhis ninna masaajid buu dhisoo wuxuu u dhisay dana kale ayuu u dhisay waa nin kaa ilaahay dartii aan u dhisin ee u dhisayey wax muslimiinta lagu lugoynayo amba lagu lafjabinayo amba dhib kaliya fasaad sidii masjidu diraar oo kale waa nin masaajid ka dhisay amba dhismuu ka dhisay qowga soo lama garanaya jar gebi ayuu ka dhisay amba qow amba meel
sare ayuu ka dhisay masaajidkii markaasaa weli wuxuu ka dhisay qowga hadduu yar durka ma durkine wuxuu ka dhisay xarafkiiyo girgirkii buu saaray haddana bal isaguna iska saarnaada girgirka intaa un maahee weliba isaguna hoosta ayuu ka dumayaa imanka haddii masalan ceelku uu maxdumaa soo maaha hadday biyo hoosta kaga socon soo ciidoo dhan ka soo hoos bixi mayso ilahay wuxuu leeyahy waa nin guri saasa dhisaya gurigaasi ma joogaya de biyina hoostay kaga socdaan isagoo girgir buu saarayey wuu aguugayaa un soo maaha haddaba kan isaga ayaan daradiisa dhul kale kuma aguugayo halkaa un kuma xabaalmaye naartii jahanamuu ku aguugayaa kana buli rabbi subxaana wa tacaala eeg shay xisiya ayaa macnawi loogu shabahaya hadduu kani guri intuu dhisto ay ciiddiiba ka wada hoos baxdo oo aqalkiisao marka dambe ma aguugayo dumi maayo ku dumi maayo ilan biyaha hoosta ka qodayo gergerbe qar buu ka dhisay jar dheer buu ka dhisay hoostiina way qodantay wuu dumi kan wuu la dumay kana haddaba masaajidkii uu moodaya inuu dhisayo waa nin meel saasa intuu ka dhisay deetana wuxuu aguugayo isagu xagguu ku aguugi naarta jahanname ayuu ku aguugayo rabbi wuxuu leeyahy afaman axad asasa aasaasay bunyaanahu dhiskiisii ka dul taagay afaman axad asasa aasaasay bunyaanahu dhiskiisii aasaasoo calaa taqwa alla ka cabsi min allahi ilaahay xaggiisa ka hatay ku aasaasoo ku dhisay iyo wa ridwaanin raalli ahaansho ilaahay uu ka doonayo khayrun makaabaa wanaagsan aman mise mid baa fiican asasa aasaasay yacni bunyaanahu dhiskiisii calaa shafaa jurufin gebi qarkii haarin dumaaya ka aasaasay buli rabbi subxaana wa tacaala shafaagu waa xarafka amba girgirka jurufkuna waxa weeyaan waa gebiga amba maxaanku rahdaayey dee meeshaa yani qawgaa waxaad tidhaahidba haarinna waa dumista markaa rabbi wuxuu leeyahy war yaa khayr badan ninka gurigiisii nabaadiina ku dhistay ee taqwo iyo alla kacabsi iyo ilaahay raallaashihiisa ku dhistay miyaa khayr badan aman mise mid baa khayr badan asasa aasaasoo taagay bunyaanahu dhiskiisii taagay calaa shafaa jurufin gebi amba qow qarqarkii girgirkii ka taagay kaasoo haarin dumaaya oo fanhaara la dumay bihi isagii oo kula dumay fii naari jahannam jahannamo naarteeda dhexdeeda buli rabbi subxaanahu wa tacaala wallaahu allah laa yahdii ma hanuuniyo alqowma dad aaalimiina aalimiina kuwa nabigu uu ku gubay masaajidka iyo masaajidkoodii wax qiimuu leeyahay ma jirto buli rabbi subxaanahu wa tacaala rabbi wuxuu leeyihi afaman axad asasa aasaasay taagay bunyaanahu dhiskiisi calaa taqwa alla ka cabsi buu ku taagay min allahi ilaahay xaggiisa ka aatay iyo wa ridwaanin raalli ahaansho doonisuu doonaya ilaahay inuu raalligeliyo daacadan ku raalligeliyo makaasaa khayrun wanaag badan oo fiican aman mise mid asasa taagay bunyaanahu dhiskiisii calaa shafaa jurufin gebi qarkii haarin dumaaya ka taagay buli rabbi subxaanahu wa tacaala oo dildillaacaya oo fanhaara bihi la dumay la aguugay oo kula aguugay xaggee fii naari jahannam jahannamo naarteeda buli rabbi subxaanahu wa tacaala walciyaadu billah wallaahu allah laa yahdii ma hanuuniyo alqowma dad aaalimiina aalimiina ilaahay wuxuu ku shabahayaa camalkay dadka ahlu ikhlaaska sameeyaan iyo iimaanka iyo camalkay ahlu nifaaq iyo dalaalku sameeyaan labadaa dhismo dhismaha sida fiican loo taagay eg taqwadii baa dhulkii adkaaya aqal dhul adag laga dul taagay oo aasaaskiisa la wanaajiyey iyo mid meel dumaysa laga taagay ma isku mid baa kay camalka taqwada iyo alla kacabsiga iyo daacada iyo iimaanku ku jiraan waa guri si fiican loo bineeyo loo dhis kan kalena waa guri aan loo aabba yeelin jar laga dhis nebigu masaajidka wuu gubay weliba waxaa laga dhigay meel gudaafadiya qashinka madiine lagu ururiyo qashinkiiyo gudaafadda meel lagu ururiyo waa lagu sii xanuunaya waa tan aayadda bareeg laa yazaalu ka suuli maayo ka tegi maayo
bunyaanuhum dhiskoodii alladii kii banow ay dhiseen riibatan shaki inuu yahay fii quluubihim quluubtooda ku sugan inuu yahay riibatan dareen xun oo qalbigooda ku sugan waa kaalkii lanaga gubay balsaa lanoo gala eeg xanuun buu ku noqonaya qalbigooda ka bixi maayo ilaa an taqadaca ilaa intay googo'ayso quluubuhum quluubtooda oo laba mid ay ku googo'y seef lagu googooyo amba mawd googooyadii ilaa intuu qalbigooda uu ka dhex baxayo ee uu googo'ayo iloobi maayo intay nool yihiin silic iyo dareen xun iyo ciil iyo muraaradillah xun buu ku dili buli rabbi subxaanahu wa tacaala iloobiba maayaan abu caamir yacni kuma dhiman magaaladii kuma dhiman mana soo gelin muraaradillah sas weeye sas muraaradillah maxaad u malay marka nimankan munaafiqiintii yacni caloolxumada iyo xiqdiga iyo karaahida iyo nacaybka qalbigooda unbaa ku jira islaam nacaybku iyo uurka gaalowgu ilaa intay la dhimanayaan buli rabbi subxaana wa tacaala rabbi wuxuu leey nimanku niman dawoobayaba maaha xataa ma dawoobayaan ilaa inta laga xabaalayo buli rabbi subxaana wa tacaala waa weli masaajidkooda iyo nifaaqi iyo gaalnimadii unbaa kusii jira quluubtooda laa yasaalu ka suuli maayo ka tegi maayo bunyaanuhum dhiskooda alladii kii banow ay dhiseen riibatan shaki iyo dareen inuu ku abuuro fii quluubihim quluubtooda ilaa an taqadaca inay googo'do quluubuhum quluubtooda mooye maalintuu qalbigoodu googo'o dee maalintaa khalaas talaba male maalintaa unba iloobi intay nool yihiin ay in dareen leeyihiin caloolxumo iyo xiqdi iyo nacayb unbay hayn buli rabbi subxaanahu wa tacaala wallaahu allah caliimun alla wax walba og weeye xakiimun shay walba halkuu ku habboonyey la dejinaya ina allaha allah ilahay halkana wuxuu tilmaamayaa arrin aad u cajiiba ilahay wuxuu tilmaamayaa jannadii ood iibsan karaysidba jannadii waa lacag odaygii muxuu ihi baadiyey jannaad dagatay soo maaha waa nin lacag la-aan ay ku disheen meesha jannadii baa la iibsanayaa jannadii baa sayladda la keenay yaa janno iibsanaya nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii mid ka midoo abu hurayra ayaa si aad u cajiib badanoo maxaa tahay amba fantastic amba aduu shayda cajiibuu ka dhigay uu qayliyey un subax barqo dadkii oo suuqiisi wuxuu yimid magaaladii madiine oo masaajidkiina uu iska faaruq yahay masaajidkii nebigu hadda ee ictikaafkiisu sidee ahaa ee salaadiisu 1000 salaadood ajarkeeda ay lahayd masaajidkii oo iska faaruq oo haawanaya suuqii oo hawgawudahayo wada xiimaya oo waadu ka dhacayo markaa unbuu si cajiiba sameeyo intuu soo lama arkaana wuu qayliye un warkaalayaay masaajidka dhexleelinaya war maxaa dhacay abuurada dhaxalkii nebigaa la qaybsanayaa kaalayaay dhaxalkii nebigaa la qaybsanayaa kaalayaay markaasaa haddii la dhaxal baa la qaybsanaya ma nin baa maqnaanaya lacag baa masaajidka amba timir baa tar haddii la ka waran wuxuun baa la qaybinaya hadii la dhaha xataa hubinba maysa waa soo maqiiqi hadda wixii la qaybinaya wuxuu ahaa haddii karbaash la isku qaybinayna wuxuun baa la qaybinaya qaybintaa ayaad ku soo imanaysa sooma markaasaa waxaa dhacay masaajidkii hadda lagu soo xoomay markaasuu yihi waa dhaxalkii nebigaa la qaybinaya mee baa la adduunya eegaya waa ka buu dhaxalku nebigu ka tegay waa salaad iyo waa qur-aan la akhriyo waa dikri iyo feedha ka qabsada dhinaciina ka qabsaday buu waa maxay waa dikri iyo daaca iyo salaad la tukadiyo waa kaa dhaxalkii nebigu iyo qur-aan la akhriyo waa xalaqaad dikriga qabta buu marka eeg waa iib jannadii baa la iibinaya maxaa jannada la siisanaya naftaadaa la siinaya nafta baad bixinaysaa hadde xoolahaagaa jannada lagaa siisanaya janno ma doonaysa xoolahaagana iska keen naftaadana keen jannaa lagaa iibin baa lagu leeyay haye maa laygu yimid baad leedahay soo maha adduunyadan baad garanaysa sooma adduunyada waxay cawsgeeriyaad waa laga tegaya dee rag baa jannadii iibsado naftii iyo maalkiiba way hureen maalkiina ilaahay bay u hureen naftiina ilaahay bay u hureen markaasaa la yidhi shahiid maxay ka dhigantay ilaahu xataa nafta inaan kuu saaro waad istaahishaa wey marag baan kahay xataa naftayda ay ugu qaalisan inaan ku siiyo waad istaahishaa wey marka ilahay wuxuu tilmaamayaa caawa in jannadii la iibsanayo qaala tacaala rabbi wuxuu leeyahy ina allaha allah ishtaraa wuxuu
كإيبسدو كسيستي اشترى وحو إيبي من المؤمنين مؤمنين تبو كإيبي أنفسهم نفوذي بو كسيست إيو أموالهم حولهودي بأن لهم إن إليين الجنة جنة كلمة اشترى إيا باع إيو إبتاع أي من ضمن كلام الله قد بقى سو إيبسدي إيا إيبينتي رمضان إن الله اشترى وإيبسدي وحو كقت وحو كقبدش من المؤمنين مؤمنين تي أنفسهم نفهودي إيا وأموالهم حولهودي بأن لهم إن إليين الجنة جنة أو يا ربي سيديوي ربوحي وحويا يقاتلون ويدقالمي في سبيل الله إلهي تتكي سيو دقالمي فيقتلون وحبي اللين ويقتلون ينوال اللين وحكلا معها نفتي مالك وحلقوا إبسانيا ربوحي يقاتلون ويدقالمي في سبيل الله إلهي دين كيسي تتكي سيو دقالمي فيقتلون وحبي اللين يقوح اللين دونا ويقتلون ينوال اللين وعد الله إلهي ويبوهي إنو جنادك قبدلا وعدا يبوهي عليه دشي ساعته حقا سوغا في التوراة بحديدة والإنجيل إنجيل والقرآن القرآن إلهي كتبت سودة شيئا ونبا إلهي وابلا وقويي إنو جنادك كسيسان يقول رب سبحانه وتعالى مرق باشاكي كغيتنا ومن أوفى ياكأو لما يستر بضا أو كبوحين أو بعهده إلهي بلن كيسة من الله إلهي مجرد بعهده بلن كيسة من الله إلهي ياكأ لما يسترد بضا ومن أحد كيبا أوفى كبوحين بضا كلما يستر بضا كأوفين بضا بعهده بلن كيسة من الله إلهي سيدو بلن كيسة ولما يستروا أبوحيو وبوحنيسا مجرد شنو إذن كسي سنة كاليا فاستبشروا واركو فرحة واحد كب الرقضان واحد كب شاريستان ببيعكم إيبكين الذي كي بايعتم أذكر بلانتين به إساقبوا البيع إيبئة به إيبئة وذلك كاسو يسوى الفوس الليبانوي العظيم وين أجيب هل كواحد دعاي نبي عليه الصلاة والسلام إمركم مدينة إبنه بل صورة سادو وحو كقوستي نمانكي عربيات بو كقوستي مكدقنا ويكسوهر بحانو وتاقوي شكارون بين نقدين مركو كقوستو وحو قوان كو قاري حلق حجك أي عد والبا إيمان يساك عبضا إنو قبيلوين كالنفتي سعوبان دقو اسكم معنايو nimankii quraysh markay ogaadeen nabigu inuu dadka la kulmaayo iyana dariiqadiiba way qaybsadeenoo meel walba qolay dhigeen markaas waxay yiraahdeen waxa tiraadaan nabiga inuu kelmad quran idhaanay leen dadku u sheekaynayo hadda xagga uu jeestay waa la inaga raacay aan wax ku heshiin waliid baa wuxuu yiri haduu midkeen inay mid leeyahay war waa ninka idinka soo baxay muxuu waa gabaya midkan la muxuu war gabayana ma waa nin waalan midkan war midna ma waa kaahin waa nin wax soo daras midkan baka waa saaxir markan waxba ku heshiin weyno dadku ilan garaad leh waxa oran doona war koon aqliba ma nin waalan iyo nin gabayaay maxay isku keenay waa nin aqli badan iyo nin bila aqli ah walba iska hormaray ninkan hadalkii caadiga ayuu si qaafiyad uu sameeyo si uu dhigdhigay كان عقلي برتي ملو برضو والقنايا حاجة إسكان منه مركا وحان ترين نس ساحرة أو ضدكي بحرفضين يوك عقلي بديي أو حركة وقد نجي مصع صعوة يعني مسكين أو وعلا ما يسكبيت بقى ما دي كرتاه وحان كوه شينو والله الشري ما حيدي أدو آخرته حكوه شيئا إنه ندانهم إنك ما نصعونا يسيه والله وليد إنه يعلى ولا يعلى عليه قرآنك وحول بو كسر ريني أن اسكن لأنه كوه شينون وسحر يؤثر وهذا البناء آدمي وسحر خطر وعصب dadka isticmaalin kala geeniya labadiina wada socdun ba brinto kala dhaqaaqay odayay islaantiisa ma kala tagay inaan iyo aabi ba kala tagay
oo waa maxay islaamnimadu ka wadaayo laba islaamiyo iyo mid islaam iyo mid gaal u bulay inanka iyo aabihiiba eeg waa col isma arki karayaan waa isaga kala kiciyey waa odaygii gaalka iyo inankiisii waa waliid ibn waliid iyo dee yani waxa weeyaan waliid ibn muqiira muxuu dhalay waliid buu dhalay soo maha waliidna waa sidaa un waa abi lahab iyo nabiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh sicir khatara weeye laba islaam uu kala dilaya tii baa lagu heshiiyey safar walba waxaa soo baxay nin sheeganaya nebinimo waxba kama jiraan sixir khatar u wata ayaanu idinkala kaxayn saa bay u sheegayaan nebigana waxaa la daba dhigay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh abi lahab markaasuu leey anaa adeerkii oo cid walba ka aqaane waa beentii ninkuu nebigu la hadla uu ka dabalayay isna waa dhib soomaa intaa leeg adiga weli waxaad sheegaysaa cid intaa kugu haysaa miyay jirtaa haddana diintii baad sheegi lahadaba soo maha haddaad sheegta wax laga kaasi ku yar qoslaanba uu ku dhegaysanba waayo laakiin cid intaa o dhan kuugu heshiisa may jirtaa maya markaa qoladii qolooyinkii marka qolo walba waa waa ninka naga daaya nimankii ansaar ayaa iyagu markay soo galeen ee lagu uri saan ba idhahdeen waa baljooga ba idhahdeen nebiba hadduu sheegta annagaa idinka naqaane bes iska daya annagaa la kulmayne ee waa dhibaato kale ilan iyagu waxay la noolaan yuhuud baa la noolayn yuhuudna waxay madaxa kaga dileen markay isyar qabtaan ee la isqardoofe ee la kala yar xoog roonaadaba inay yidhahdaan tollaay waxaa iman doono xilligii nebiga aakhiru zamaanku uu iman doono eenu idinka dhigi doono annaga atbaacdiisa noqonayna kelmaddii baa iyaga ku qufulante kelmaddii yuhuudi ay ku akrinaysay un bay idhahdeen wallaahi waa kii yuhuudi ay sheegaysay maantaan hellaynu fursade aan uga dheerayna inagu aynu inagu gawda ka saarnay ila waa yuhuud baa ku akri jirta soo maha 6 nin oo ansaartii ka mid a unbaa nebiga la kulmay annagaa naqaanina daayidhahay nebigay rumeeyeen way la ballameen way noqdeen sanadkii kale 12 baa yimid nebigay beeciyo dhaar la galeen sanadkii kale 73 baa yimid 2 dumar ay yihiin nebigay beeca la galeen haddaba kuwaa markay nebiga beecada la gelayeen beecadu waa maxay waa dhaar cabdillaahi ibni rawaaxa istaagay wuxuu leeyay maxamedow annagu haddaanu ansaarnahay waana sanadkii nebigu uu soo hijrooday sanadkii ka horreeyey waa gogolxaarkii hijrada wuxuu yihi nebi allow ishtarid lirabbika walinafsik imakaba shardi amba yacni waxa weeyaan u samayso yacni waxaad samaysataa shardi dhiga imakaba shardi waa maxay oo wixii de condition iyo condition iyo waxaad tidhaahidba yacni wax imaka qabso naftaadana u qabso rabbigaana u qabso oo maxaa dhici waxa uu yihi nebi allow imakaba samee buuri nebigu wuxuu yihi ashtaridu lirabbi rabbigay shardi baan u qabanoo waxaan idinkaga dhigayaa qodob aan la dhaafi karayn an tacbuduuhu walaa tushrikuu bihi shay-a isaga keligii waa inaad caabudaan oo idaan wax kale ugu shariigeen aniguna waxaan naftayda u shardiyayaa oon qodob u qabsan an tamnacuunii mima tamnacuuna minhu anfusakum inaad iga celisaan waxaad naftiina ka celinaysaan iyo ubadkiina labadan baan idinka raba hadday rabbi noqoto keligii caabudo hadday aniga noqoto waxaan idinka rabaa inaad waxaad nafihiina ka yeelaysaan iga yeeshaan aad idifaacdaan markaasaa cabdillahi ibn rawaaxa nin aada u geesiya wuxuu yihi faidaa facalnaa dalika famaa lana haddaan sidaa yeelo annagu de maxaan helayna maxaan ka istifiidayna adiga arkayda maxaa iga soo gelaya lana sooma imaka wuxuu yihi cabdillahi ibn rawaaxa haddaan sidaa yeelo annaga maxaa naga soo gelay buui maxaan de kaa istifiidayna annaguna wuxuu yihi nebigu aljanna bal u fiirsa haddaad nafiina ilaahay iyo rasuulkiisa u hurtaan idinkuna waxaad istafiidaysaan jannaad helaysaan kelmaddaa markuu maqlay ayaa mar qula waxay idhahdeen rabixa albayc laa naqiilu walaa nastaqiil bay dhahen khalaas waan guulaysanay lagama noqdaan weeye annaguna kama noqonayno adna kama noqonaysa waa bas wey way ku dhantay nebi maxamedow adna ka bixi maysid annaguna kama baxna bay idhahdeen barragaa u fiirsa khalaas wax walba waanu ku ogollay ilaahayna waan ogollayn annaguna jannadu nama seegto ay idhahdeen
markaa jannada naftaada iyo maalkaaga ku haya wey waad iibsanaysaa amba adaa dayacaya waa kan ina allaha allah ishtaraa wuxuu iibsaday min almu'miniina mu'miniinta anfusahum nafoodiiyo wa amwaalahum xoolahooda wuxuu ka siistay bianna lahum inay leeyihin aljannata janna yuqaatiluuna way dagaalami fii sabiili illah ilaahay jidkiisa u dagaalami fayaqtuluuna waxbay layn wayuqtaluuna waa la layn wacdan ballanqaad weeye calayhi ilaahay ay wacadallaahu ilaan af carabigii hadal baa ka horeeye waxa uu ilaahay subxaana wa tacaala leeyahy wacadallaahu ilaahay wuu yaboohay weeye arrintaa buu yaboohay waana wacdan yabooh calayhi dushiisa atoo xaqan sugan fi tawraati kitaabkii tawraat dhexdii walinjiili injiil dhexdii waalqur'aan iyo qur-aanka dhexdiisa waman awfaa war ilaahay baa ballankaa qaaday ilaahay baa ballankaa isduldhigay waman awfaa yaa ka dhammaystirid badan oo ka buuxin badan bicahdihii ballankiisa min allahi ilaahay cid ka ballan oofin badani ma jirto ee fastabshiruu ku bushaaraysta oo waxaad ku faraxdaan bibaycikum iibkiinna alladii kii baayactum aad kula iibtanteen bihi isagaba iibkaas ku farxa wadaalika kaasi huwa isagu alfawsu liibaan weeye liibaantii alcadiimu weyneyd ilahi subxaanaه wa taala inaga dhiga min ahli jannati wabilahi towfiiq allah wasalih wajalla bismi llah alxamdu lilah wasanaa lilah wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiya walmursaliin rabbana atina fi dunya xasanata wafi laakhirati xasanata waqina cadaaba annar sala allah wasalam ala